بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، walaalayaal darsiga iyo muxaadarada caawa waxa ay ku saabsan tahay ama ciwaanka la shaaciyey waxa weeye casrigii caannimada wey. inta badanna insha allahu tabaaraka wa tacaala muxaadaradeenna waxaan muhiimadda saari doonaa oo aan la dardaarmi doonaa ducaada casriga ah. waxaan uga digi doonaa inay ku milmaan casriga caannimada. waano iyo wacdi ayaan halkan ka jeedin doonaa insha allahu tabaaraka wa tacaala oo iyaga si toosa ugu wajahan biidni illaahi tabaaraka wa tacaala. diinteennu waxay ammaantay addoommada kuwa ugu khayrka badan leh oo ducaada ah, waana ilaahay midda uu leeyahay waman axsanu qowla miman dacaa ila allahi wa camila saalixan wa qaala inanii min almuslimiin. sidoo kalena diinteennu waxay ammaantay ruuxa anfaca oo dadka ku anfaca aqoontiisa iyo garashadiisa, xirfadihiisa, codkiisa iyo xooggiisa intuba. maxaa yeelay intaasi ruuxa hadduu xirfadihiisa iyo aqoontiisa iyo garashadiisa iyo xooggiisa iyo uu dadka ku anfacay, waxay ka mid tahay waxyaabaha la ammaanay oo la yidhi hal isku anfaco. marka saa daraaddeeda meelaha laftirkeeda waxaa qofka ka soo geli kara xoogaa caannimo raadis ah iyo xoogaa riyaa ah oo istutus ayaa ka soo geli kara. saa daraaddeed buu nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu calayhi wuu nooga digay oo ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ammaanay uu jecel yahay kuwa dadka anfaca. axabu nnaasi ila allah anfacahum linnaas. ilaahay tabaaraka wa tacaala dadka wuxuu ugu jecel yahay anfacahum linnaas, kuwa dadka anfacay oo xoolahooda iyo xoogooda iyo xirfadooda iyo aqoontooda intay dhan tahay ku anfacaya ayuu ilaahay tabaaraka wa tacaala doortaa uu jecel yahay. wa axabu alacmaali ila allah buu ilaah nabi muxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ka hadlay camalka midda ugu fadliga badanla nabigeennan wuxuu ku sheegay walaalkaaga ood farxad geliso ama ruux muslim qalbigiisa ood farxad geliso, taasaa ugu fadli badan buu yidhi nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu calayhi. ow yakshifu canhu kurbatan ow yaqdi canhu daynan ow tadrudu canhu juucan. nabigeenu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh arrimahaas oo dhan buu ka hadlayaa. ama ruux walaalkaaga ah ood kurbo ka faydo ama dayn ka guddo ama cudur hayay ka daaweyso. nabigeenu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu tilmaamayaa wala-in amshi maca akhin lii fii xaajatin axabu ilaya min an actakifa fi hada almasjid. nabiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu leeyahay inaan markaasi u raaco maca akhin lii, walaal ani ii sugnaaday, walaalkayga ah oo diinta ku walaalowday, fii xaajatin danihiisa inaan u raaco ayaan jeclahay buur. waxaana ka jeclahay min an actakifa fi hada almasjid ee masjid magaalada madiine ku yaalay ee nebigu uu lahaa shahran bil inaan ku ictikaafo yaan ka jeclahay buur. macnaheedu waxa weeye intaasoo dhan waa anfac ruuxa walaalka muslimka ah walaalkiisa kale uu ku anfacayo waay. intaasi marka oo dhan waxaa jira wax haddii aad samayso lagaa aqbalayo, ajarna aad ku helayso, iyo wax aqbalka u diidaya. maxaa yeele intaasoo dhan waa camal la qabto wey oo gacmaha laga qabto wey. saa daraaddeeda haddii laga aqbalo ajar baad ku helaysaa, bal ilaahay tabaaraka wa tacaala jannadiisaad ku mutaysanaysaa. haddii laga aqbali waayana naar baadba ku mutaysan kartaaba. maxaa yeelay acmaasha quruxda badana samayntooda waxaa isu daalisay inaad ruux kale oo walaalkaaga aada istustusto oo aada islamarkaana magacaad uga raadiso. saa daraaddeeda ikhlaaska walaalayaal markaaynu ka hadalno wuxuu ka mid yahay saddexda arrimood ee ruuxa camalkiisa looga aqbalo haddii laga helo. oo acmaasha sideeduba waxaa lagu aqbalaa
haddii saddex laga helo haddii laga helo saddex oo koow ay ka tahay camalka aad samaynayso intaadan samaynin ka hor inaadba iimaan leedahay oo ruux iimaan le aad tahay oo diinta islaamka rumaysan waa koow tan labaadna waa inaad uga dayanayso nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh camalka waa inaad nebiga uga dayanayso tan saddexaadna ikhlaaska wey waana midda aan ka hadlay daanta sooma ikhlaaska weeyaan marka nabigeenuna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu leeyahy yaa ayuha nnaasu akhlisuu acmaalakum lilah dadow camalkiina ilaahay u khaas yeela oo camalkiina ilaahay u gaar yeela ayuu leeyahay nabigeenu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh fa ina allaha laa yaqbalu min alcamali ilaa maa khalusa ilaahay tabaaraka watacaala camalku ma aqbalo ilaa midka loo khaas yeelay mooye midka asaga dartii loo qabtay mooyaane camal aad magac ku raadinaysay oo sumcad ku raadinaysay ood yacni waxa weeyaan aad ku raadinaysay hal lagu ammaano camal noocaasoo kaleenta ah ilaahay ma aqbalo tabaaraka watacaala camaasha uu aqbalaya waxa weeye kan asaga dartiisa loo sameeye waaye samayntaasna ay la jirto midaad nabigeenna uga dayanaysa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh bal nabigu sal alla alay wasalam wuxuu yidhi ruuxa marka waxaa loo diiday walaa taquluu hada lilah waliraxim hadhihina baa layidhi kan ilaahay baa iskale iyo raximka ha isu lamaaninina ilaahay waxaad u gooni yeeshaan keligiisaa iskale dhaha oo asaga iyo raximka waxba ha ka dhexaysiinina fa inahu lilraximi walaysa lilahi minhu shay waxaasi raximkaa iskale maxaa yeele ilaahay waa tanaasulaha oo camalku sidiisaba haddii la baraxo oo cid kale yacni waxa weeyaan loo leexiyo ilaahay tabaaraka watacaala ciddaa loo leexiyey buu u daayaa kama dabadaydo kuma daydo ilaahay tabaaraka watacaala marka camalkaagu khaas ka dhig ilaahay tabaaraka watacaala u khaas yeel bal nabigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh istutusku wuxuu ku sheegay shirki qarsoon aan la fahmaynin oo kuu dhuumanay waa shirki qarsoon waa shirki aan la fahmi karin nabigu sal alla alay wasalam wuxuu leey yaa ayuha nnaasu iyaakum washirka saraa'ir dadow waxaan idinkaga digayaa shirkiga qarsoon sooma shirkiga qarsoon baan idinkaga digayaa markaasi wuxuu yidhahdeen rasuul ilaahayow wama shirka saraa'ir yani shirkiga qarsoon muxuu yahay markaasuu nabigu wuxuu yihi sal alla alay wasalam yaquumu rajulu fayusallii fayuzayinu salaatahu lima yaraa min nadari innaasi ilayh oo macnaheedu yahay nabigu wuxuu yihi shirkiga qarsoon waxaa laga wadaa oon la dareemaynin waa ruuxa inuu istaago salaad uu istaago markaasuu fa yuzayinu salaatahu salaadiisu qurxinaya sababta u qurxinaya ma taqaanaa ilaahay dartiis ma aha yaa nebiga uga dayana ma aha siduu nebi maxamed u dukan jiray u dukana ma aha siday shareecadu sheegtay u samayna ma ahee limaa yaraa yacni min nadari innaasi ilayhi aragtida uu arkaya inay dadku eegayaan oy dadku daawanayaan dadkaasuu iska gadayaa mooye salaadiisu ujeedadiisuba ma ahayn ilaahay dartii u qurxi oo salaada ilaahay dartii tabaaraka watacaala u toos hadda soo ma jiraan dad markay ayagu kaligood dukanayaan salaada boobsiinay marka loo soo galana xoogaa salaadu qurqurxinaya si loo yiraahdo hebel alla salaad fiicana oo salaad qurux badana oo sida u khushuucay bal fiiri oo salaada si ugu daahay bal fiiri in la yiraahdo raba saadaraadii buu salaadii qurxinaya si dadku marka ay u daawadaan saadaraadii san arki doono qisaska aan noo soo socdo aan ku arki doono culimadii hore cibaadada waaba la dhuuman jireen oo waxay dhihi jireen ma doonayo in lay arko anigoo cibaadaysanay maxay cibaadada aniga rabbiga naga dhexaysa marka waa sidaas walaalayaal haddaan wax yar usoo laaban ikhlaaska waxaa la yidhaahdaa camal kasto oo aad u qabanayso camal walba oo aad qabanayso inaadan u eegin si ay markaasi dadka kale sida ay dadka kale ku arkaan ama inay dadka kale ku eegaan darteed ha u samaynin oo aad camalkaaga u samayso sida allah tabaaraka watacaala kuu eegayo uu kuu arkayo saa u samee saa daraadeed bay culimmadu waxay dhihi jireen ruux ilaahay tabaaraka watacaala eegayo oo ilaahay tabaaraka watacaala helay yuu kaloo u baahanya ruux ilaahay waayey tabaaraka watacaala yuu kaloo helay saasay dhihi jireen marka camalkaaga waxaa la doonayaa ilaahay inuu ku arkayo kale inaad u samayso isagoo ku arkayo kale maxaa yeele haddaadan adigu arkaynin isagaa ku arkaya ilaahay tabaaraka watacaala waa inaadaan usoo laabano marka istutuska maxaa la yidhahdaa waa su-aal kale maxaa istutus ah haddii lasoo duuduubo istutuska waxaa la yidhaahdaa salaada soonka sakada sadaqada
runta dacwada camal kastoo abaalkiisu janno ahaa oo aad u samayso adduunyo darteed istutustaas la yiraahdo yacni camal markaad samayso abaal gudkiisu yahay janno ood u samayso bini aadamku dartiisa ha ku daawadaan oo ha ku arkaan saas darteed aad u samayso ayaa la yiraahdaa muxuu ahaa istutuska la yiraahdaa saadaradeed buu ilaahay tabaaraka tacaala nabigiisu wuxuu ula dardaarmayaa inuu camalkiisa oo dhan ilaahay u barax tiro tabaaraka tacaala oo wuxuu leeyahay camalkaaga oo dhan ilaahay u barax tiro dhankiisa gee qul inna salaatii wa nusuki yani wa nusuki wa mahyaaya wa mamaatii lillahi rabbil caalamiin camalkayga salaadayda gowracayga noloshayda geeridayda intuba ilaahay bay u sugnaadeen tabaaraka tacaala saas dhabaal yidhi walaalayaal faa'iidada laga helayo ikhlaaska haddaan warka soo koobo ikhlaasku waxaa looga badbaadaa sharta shaydaanka iyo inuu markaasi adduunyada kuu qurxiyo mar allaala markuu shaydaanku u dhaartay yaa aadam marka la abuur waa tii shaydaanka dhaartay sooma muxuu ku dhaartay wuxuu ku dhaartay inuu bini aadamka fidnaynayo inuu bini aadamku luminayo yuu ka soo reebay mataqaanaa ilaa cibaadaka minhum almukhlasiin buuri ilahi tabaraka taala nabi muxuu shaydaan ninka la yirahdo muxuu yidhi ilaa cibaadaka minhum almukhlasiin addoommadaada khaaska ku ahoo cibaadada barax tira oo cibaadada dhankaaga la aada mooye inta kale waa baadiyeynayaa buuri shaydaan walufis marka maxay caddaynaysaa ikhlaaska in looga badbaadayo shaydaan yani dhibaatadiis in looga badbaadayo sidoo kale ikhlaaska waxaa lagu helaa qaatumo wanaagsan baa lagu helaa intaa ay saa tahayna waxaa u daliila nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiiskiiso la weydiiyey nebigu man ascadu nnaasi bishafaacatika ya rasuul allah yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha la weydiiyey rasuul ilaahay oo shafaacadaada yaa helay markaasuu nebigu wuxuu sal alay wasalam xadiiska su-aasha waxaa weydiinaya abu hurayra markaasuu nebigu wuxuu yihi laqad danantu ya abaa hurayra an laa yas'alanii can hada alxadiisi axadun yani awalu minka axad adigu kaa horeeya inuusan su-aashan i weydiinaynin in xadiiskan uusan i warsanaynin waa ogaa limaa ra'aytu min xirsika cala alxadiid sida aan u arkay buu yidhi xadiisku sidaad ugu dadaalayso ascadu nnaasi bishafaacati yowma alqiyaama man qaala laa ilaaha ila allah khaalisan min qalbihi aw nafsi oo macnaheedu waxa weeye nebigu wuxu uri sal alay wasalam shafaacadayda maalinta qiyaamaha waxaa helaa ruux yidhi laa ilaaha ila allah asagoo khaalisan min qalbigiisu ku qaas yeelaya oo dee camalkaasi yani waxa weyaan tawxiidka ah hadda waa camal wanaagsan sooma camal wanaagsan weeye ruuxa markuu camalkaa wanaagsan samaynayo hadduu ilaahay dartii ula jeedo tawxiidkiisa ilahay dartii ula jeedo ruuxaas wey ruuxa shafaacada helaya marka waa qaatumo wanaagsan wey haddaad tahay ruux wanaagsan wey waa qaatumo wanaagsan walaalayaal qisas baa jira oo laga soo wariyo culimmadii horeysay ee salafuna saalix salafkii wanaagsanaa laga soo wariyay ayaa jirto ayaan rabaa inaan wax yar idin bidhaamiyo oo ku saabsan ikhlaaska hadda waxaan ka hadlayna waa casrigii caannimada sooma waa casrigii ikhlaaska laga tegay waa casrigii wax kasta ay noqdeen ha lagaa sheego iyo ha lagaa arko iyo can aad noqotid iyo magac aad yeelatid sooma saa daraaddeed culimmadii hore siday uga duwanaayeen ama dadkii hore siday uga duwanaayeen dadka maanta casriga nool ayay markaasi qisaska tilmaamayaan mana dhaadheero qisas gaagaaban wey marka qisadan waxay ku saabsan tahay imaam cabduraxmaan ibn abi leyla wuxuu ahaa nin muxadisa oo zaahid ah oo cibaado badan buu ahaa sheekha sidoo kale wuxuu ahaa nin ikhlaas badan waxaa la sheegaa markuu dukanayo haddii ay cidi albaabka usoo garaacdo wuu iska seexan jira oo salaaduu furi jira oo iska seexan jira yani waxaweyaan wuu dhuumanayaa iska seexanaya isagoo diidaya inuu qof arko qof isagoo salaad dukanaya inuu qof arko buu diidaya markaasuu salaadu ka baxaya markaasuu meel kale ku dukanaya sidoo kale nin la yidhaahdo ibraahim annaqaci mar allaala markuu axad usoo galo ama uu usoo garaaco albaabka asagoo kitaabka alla akhrinaya wuu dabooli jiray kitaabkii daboolaya isku daboolaya jiijinaya mar la weydiiyey oo la weydiiyey mar maxaa kugu dhacay mar allaala marka lagu soo galo kitaabku waad laabi maad hawshaa iska sii wadatid markaasuu wuxuu yidhi anigu ma doonaya buu yidhi in la i arko ama la arko cibaado aniga iyo rabbigay naga dhexayso malufis cibaado aniga iyo rabbigay naga dhexayso inuu axad arko ma doonaya buu yidhi mana doonaya buu yidhi inuu qofka yacni ugu ammaano oo u yidhaahdo hebel qur-aan aqrin badana
يا إبراهيم الله قرآن آخرين بدنا نكاس إنسان لي هذا مرة بقول محايل عمل كي وحنا نقدر حيا أنا جاي ربي جاي رد كلام مرة بقول إني نصور حاجة سو مركا وين قد ونايين يعني وحويان علماء يهورة ساس وجود ذلك جرين إخلاص كقرآنتي وين نقدر علمي بنايين مرهذا ما أنت وتقرأنا يسوما قرآن كبار الله قرحني يا سوشيال ميديا لسه صدق يا والله يعني وحويان عدك الله قرحين أو حال جر هذين القرآن كي روح أسقوا برتور نصيب بالله هدوه إلهي القرآن كبري أو قاري كهاد جاي نصيب بالله سوما ما أنت نصيبك أنت لقى فائدة سوى إبات السوشيال ميديا لسه صدق يا عدك وحال جر هذين يعانموا هبل عد بدنا إن لقيراد وحاجة تصدق كلا قصة كلا أو آدي عجيبوها أو أسقنا وحوها ورينا يو نيل هذا مالك ابن الدينار قصة وحوي مالك باوحو يميت أما يميت بصرة ودولك عراق يميت مركزو أركي مقالة دات كذا عبادة أيكون مشغول سنين ومقالة بصرة دات كذا ودا عبادة سنة أو صلاة كتشرة أو السيدة مركزي وقلان مقرب كي يعني وحوي ظهر كسي مسايه وقلان عشاء كصباح مركزو جابي markaasuu su'aal nin kamid weydiiyay wuxuu maxay ku dhacay waa idin kan misay ku urursanay maxay ku dhacay markaasuu wuxuu yiri abaar baa dhacday abaar yaa dhacday sadaradeeda ilaahay baa la baryayaa inuu roob keeno yaa ilaahay loo baryaa tabaaraka taala wala fi say u cibaado badnaayeen markaasuu asaga muxuu ahaa muusan ahayn nin meesha degan ninkii leeyahay Malik ibn Dinar muusan ahayn nin meesha degan muusan ahayn markaasuu misayku iska seexan jiray misayku iska seexanay هذا مركو السحر مركو عشيه بالجارية حلي وحال الجارية ضدكوا يكلا دري صوبا نبى صوق علي مركو واك مركو شيء كذا ماشي كمعده نبى صوق علي وهلو خيرة انتو صوق علي نينك بار إذا عايز كفيري مركز مسايك صوق علي صلاة بور لنا وحرتو إذا عايز كفيري مركز صلاة حرتي وفيرونه يا مرك مالك صلاة مركو حرتي وجمعها كرو تاعي مركز ويري إله يوم وأن أوجه إن هذا الدوام لا رجعش sidoo kalena waan ogahay dhibaatada maanta haysatay dambi iyagu ay galeen in laga goynayo ilaahay waan ogahay sadaradeed ilaahay oo adoomadaada isaga naxariiso buur waa ninkii adoonka ahaa bal Malik ibn Dinar maruu ninkaas sifeynay wuxuu ahaa nin madow oo sangaaban nin madow oo sangaaban Afrikaana yuu ahaa buur walofis ma soo saas uma qurux badnay ilaahay oo adoomada isaga naxariiso buur roob u keen markaas ninkii markuu dhameystay dhinacyo iska fiiriyay iska baxay asaga marka ninka uma jeedo Malik ibn Dinar inuu meesha fadhiyo uma jeedo markuu saa u baxay intuu san bixinba roob baa soo daatay roob baa dhinacyaha isaga yimid cirkiisa soo xiray barwaaqa da'day ninkii marka wax yar misaajidku isku yar celiyay markuu wax yar roobka qiyoosay buu dhaqaaqay iska oo carray Malik marka waa ka daba carray ninku waa nin la yaab Soomaa nin yaani ducadiisa la aqbalay يا أودت كان أنت عبادة السنة دعوة الأقبلي وأسأل دعوة الأقبلي ولا يابي وكاسو تبرع وكاسو يجري جوري بو إيجا قليبور جوري يرب بولا يوجا قليبور جوري مركو قلي كم بدأ بقلينه وأسكع علامة السيبور ما دام هبين أي هذا وأسكع علامة السيب يقان سوقاتهم كو علامة دي وكاس أسكت تجيبور الصبح ما وصل الله تجيبور ماشي أنا وقمت مركز واحد أركبه الله كل ماي نين مركز يجري يا الضومو يبنيه markaasaan iri bur walaalow adoon iga iibi adoomo badan buu isoo bandhigay bur adoomo badan buu usoo bandhigay kan marraba wuxuu ka dhex raadinayaa ninkii xalay meeshaan soo galay markaasuu wuxuu yidhi war waxaani mar rabee ninkaasi buulka ku jira muxuu ahaa markaasuu wuxuu yidhi ninkii adoomaha gaday baa wuxuu yidhi war ninkaasi waxba ku qaban maayo waa nin iska suufi ahoo iska cibaadaysta mooyaane shaqaba kuu qaban maayo nin shaqo qabta ma aha iska dhaaf ninkaas ana aqaanay markaas wuxuu asaga iga gad asagaan rabaay sidiisan ku rabaa mar baa iska daysan ninka wax ku tari maayo may asaga iga gad buusho qaada buur markaasuu soo watay guriga markay yimaadeen yuu ninkii hadlay baa wuxuu yidhi waa ninkii baa hadlay wuxuu leeyahay muxuu ahaa Maaligow maxaad ii soo wadatay buur aan waxba kuu tari maayo yacni howl kuuma qaban karo xirfad ma aqaano maxaa ii soo wadatay markaasuu wuxuu yidhi waxaan kuu soo watay inaan sir ogaado buur xalay baan ku arkay buur adoo masaajidka soo galay yaa oo dhinaca iska eegaya oo salaad xiratay oo ilaahay bariday oo baridaada ilaahay aqbalay maxaad samays markaasuu wuxuu yidhi amaad qof kale aragtay yaad igu ka haysaa amaad qof kale aragtayno aanay ahayn cidaad aragtay markaasuu wuxuu yidhi maya
ورن أريد أن أركب مركز وحو يري يحير إيسوبر ونك يا ده سجود بقول عينك لا بركة سنة دكتور سجود بقول عين مركز سجود إلهي كبري تبارك وتعالى مركز وحو يا صاحب السر الله سرت حفظيه سرت يدي ويفكتي صوما سرتي أنا أدنى قد حيسي وهي عن قرقرين شر عباداتك عن قرقرين شر وهي قفكتين إلهي يو أنيقو عان إن الدنيا كسي نولادو مرة أو صبر مركز نينك أنت ساسو بقول أنت إلهي بعد عدو أقبلي سجودي وكدعي ساسو بنفته قبح ذي قصة اسمك وحي نوت المامي سوي دماتيه وحي نوت المامي سا إخلاص كهير كي كجارين دتك هراء بلو فيرس والله لو أنا أهاي حتى وديه كريسوما لكن ما دهن مركز وحي يربح يريسو الله صاحب السر هو سرتي ذي ويفكتي سرتي أنا قد حيسو عبادة أهيد ويفكتي سادرات دي مرة بإن أنا وعانه اللي يقانو ننكي دعادي سلا أقبلي ننكي دعادي سلا أقبلي إن لي ده مرة بيه إلهي أو سمور تامرك وحي عدين ساقطة وحي نوش ويسا إن ديدتك هرسيدة وجود دالي تشرين إخلاصك إيه مركزي سجنا إلى لين تشرين استوتوسك وحلي راه أي سجى إلى لين تشرين تاسي نوع عدين سا وعلى صحيحة أو سجن علماء السلف كي سبنا قاركود قار كميدا مركا أي درس بحين يان أفر قفوت وحكبرا ما يسن درس سيجري هذا كسر بطاوة ويكعريجر كسر يحيده يجرين مرة من إن العان نقنه أنت سو عندنا سوديس ما بيرين كرب بس هذا يجري علماء يهرا هدي أي علم برتان وحالي هذا علماء يهرا هدي علم برتان ويكون رقم يجرين هدي يكون رقمنا ولا وين شري أيوة دم ولا وين شري هدي لو ويانا ولا رادين شري ولا بادي جو بشري وركي حقه كبعي هدي للصوه لنا يا ويعرجرين وضو يكسي يعرجر أيوة كبقية عن نمو أما إني عن نقدان تهدان قصص كوجسوت طلابه أو عن نمو كوسافسن يصيروا كالإخلاص كذا كيورة معاك هنا إخلاص حميدة روح إنه إخلاص حمو كل عضو معاك هنا عذر كاسيس معاك هنا عذر كالله بقى ريموت باللوتيريا أرنتو كوادعوي أدوية شعيل يحول شعيل لماذا صار الله سمعه روح إن قلبي يسوكسو ظاهرته أدوية شعيل أدوية مسكت شعلاده يصيروا كأنه حولها شعلاده maxay haduu adduunyada jeclaado wax kasto adduunyadiisa u fududeynay inuu sameeyo ku soo dhaceys haduu xoolaha jeclaadana wax kasto xoolaha inuu helo u fududeynay xalaal ama xaraam ba ha noqotee uu raadinaya xirfad kasto xoolaha ku heli karo uu raadinaya xaraam ba ha noqotee soo saasma hadaba loo fiirso adigoo daaciya haday ku gasho adduunyo jacaylka hor cudurka sutusku ku dhaco marka waxaad raadinaysaa cilmiga ilaahay ku baray baad waxaad ku raadinaysaa magac hal lagu amaano hal lagu sheego yaani saameyn aad samaysid baad raadinaysaa nabiga sallallahu alayhi wasallam alayhi saxaabadiis ya maalmaha kamid uu yeeray kaasuu yiri halumma ilayya isra abur fa aqbilu ilayhi fajalasu wa ila faristan wasra'in markaas uu yiri hada rasulullah rabbil alamin jibril نفس في روحي إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وإن أبطأ عليه معناه هذا وعوي جبريل بوير ملك الجبريل باوح القلب يقعفو في نفي إليسان دمانينين إلا أرزاق ديدو دميسطو أرزاق دان أدادوك ودك استكر هذينيسو يا أد فيوس ككر هذينيسو أد شير تكر هذينيسو أد لايك تكر هذينيسو وما أرزاق الله سي قريبا أو آذن دمانين إلا آذ عنتو أو آذن دمانين إلا آذ هشو وإن أبطأ عليه بور هذا كسر ظهره هذا كسر ظهره مركز النبي وحي الرعي هذا العجيبة مركز وحي فاتقوا الله وأجملوا في طلب إلهي كعب صدو قاب كاد لعقت كل هذين الإنسان إسكها قاتشية طلبك إسكها قاتشية ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله تبارك وتعالى نبينا وحي صلوات ربي والسلام عليه يسن إذن كحم بارين عنت إذن كسر الضهضي يرزاقات إذن كسر الضهضي إن تكون هذا الإنسان بمعصية الله تبارك وتعالى معصية الله تبارك وتعالى ورفس فإن الله لا ينال ما عنده إلا بضاعته معناه وحي إله تبارك وتعالى لقو مقار نعمديسة
يبرواقديسا يأرزاقديسا لغم هلو إلا بطاعته داعديسا موياني رفس إلهي مركر عليها هشيسا داعديسا لغم هلا مركر النبيين وحوليه صلوات ربي السلام عليه أحد كين يوسن كوحين بارن أرزاقد رادين فيوس رادين يعني مقع رادين تيوسن كوحين بارن إنه معصي إلهي كرادي تبارك وتعالى معصي إلهي كرادي بوليه على مالها إخلاص حميدة محاكمة طبعا سو شيخنا إخلاص كوي علامات كيس مركا وحن شيخ دونا علامتها إخلاص حميدة إن الروح إخلاص حماها يسمح له قرطا أما الروح إنه يروح استوستوس بدن سلو قرطا سؤال ما أرنك كواد لو قرطا وحوي الروح إنه روح استوستوس بدن ياي روح أو جعلاده كدح موقشده ددك سوما إن ددك أن كدح موقته إن جعلاته يا إن حفلتها لقاقا وعر إن المسرحية الصو حاضرته إن المير والبكاه رشو إن مجلس والبمرك اللي تشو الصوب بودو هذا اللي الصوب بودو سوساس ما دتك قاركو سو مادان أرك حد ماله واد أرك يساوي مركي قرد شوغان الصغا أفتان وابا وح حضلي كرب ماله لا أنت سوى حضلي كرب ماله مركز اسكا دواقي اسكا قيلين وحو رب الشيغي حدو قف هاد لها هذا الكوا كدفيا هذا الشعلي إنه ما أنت وحو ربا مجلس كاسينو كدح موضوع ربا نبي صلوات ربي السلام عليه آد بنوجتك سكتشر بوش كده موقشة مالها للسوي ماذا براها بالشدة السوي ماذا إنها تكده موقت النبي جواد ديدي صلوات ربي السلام عليه معه دليله حديث النبي جينا صلوات ربي السلام عليه اتقوا هذه المذابح لأنها تذبح الإخلاص والدين معناه هذا وحوي نبي يقول اتقوا هذه المذابح مالها للسوي ماذا بالشدة كوكولنتو سكتشر كعب صدبوش لأنها تذبح الإخلاص والدين معايا وحي قليسا يقورعيسا إخلاص الدين تادي يقورعيسا لا سوي ما اسك إلى لبوش هكسر دح موقنين ها إيمانين يعني هذا يدني كلفت مويانه أو أرين كوجو كلفتين أنت كسر دح موقت مويانه يعني عادها كدغان المر والبينا الصوم موقته يا دقيقة والبموقال كاغو يالله دقيقة والبوجي كاغو دك أتكهر كنتو اسكتشر بوش اتقوا هذه المذابح لا سوي ما اسكتشر حديث كاسا مركز ستة سعود ديدية إن يعني قفك مر والباي وصوم وغلو مركز علامات كاللقو قرت الروح إنه استوستوس هيو أو مركز اسم قشيس وكبو حي أما إخلاص حما أي هاي سوى حال لقو قرتا إنه الروح هتشعلادو كصدح موقشدة ميلها أيدتكو سقوي مادان سيدو كالعلاماتها لقو قرت الروح إنه استوستوس ليه وحكمها روح هتشعلادة أمانتا سؤال فما أفوي إن الأمانة تشعلاتو إن لقو أمانو يا إن لقو ما أنت لقو ده هبلا في عنا ونكسنا شيخ سنا يا ونين ساسو كلا ونين علم بدن ونين افتهنا إن لقو الشيخ شغل لقو أماننا شعلاته نبي صلوات ربي السلام عليه أرنك واديدي وواحد عدم مالما كم إذا ننبى نبي محمد أكتس لقو أماني يعني أثنى رجل على رجل ننبى نن أماني حيرنين كان في عنا ونكسنا الدين ونكسنا وساس وأماني مركز النبي وحي صلوات ربي السلام عليه ويلك قطعت عنق أخيك بور ها هو باقي ولالك دبركات كجويس بور دبركات كتشبسي ومده ولالك وضعنا حريصتي وواد أمانتي وواد بتشعش أي مده ولالك دبركات كتشبسي بور واد كواشي وحي سومالي ويلادان سسوي معه سدح شرب كسوعلي النبي وحي صلوات ربي السلام عليه أسلوب السني من كان منكم مادحا لا محالة روحا هدوبة دتون أمانيو والروح نسك أمانيو وحو دونا بحكو أماني يا هير هذا بوير فليقول أحسب فلانا والله حسيبه هبل ساسا لينا لكن إلهي بحسابنا لينا يعني أبوه مهوتيد طبعا وسكك دقي كرا وسكك كيني كرا روح واسكلي فكرة ولا أزكي على الله أحدا ساسده إلهي أحد أماني ما يا هبل ساسا لينا إنه يهي الروح ونكسنا لينا إنه يهي الروح سياسا لينا لكن ما هو بده إن كان يعلم بقدر النبي صلى الله عليه وسلم عليه حتى هداد وناك أكت يا أود وناك أكتاي أود علمك أكتاي أود أقومك أكتاي أود وناك أكتاي هديهن هبل وناك سيه وبقولك وبقول والله بايو الصدا ويانا وهديه ساسو النبي صلى الله عليه وسلم عليه النبي قال صلى الله عليه وسلم عليه صحابتي سمو أين أوغلان شيرين أمانته بل يجو متيسي هدنا مين أوغلان شيرين وحين ديه شيرين اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون واجعل لي خيرا مما يظنون معناه يقول
اللهم لا تؤاخذني بما يقولون إله هاي قبن دتك وحيابا إن هدايان يا هبل وناك سنة أو خير بدنا أو ساعها أو علم السنة إله هاي قبن واغفر لي ما لا يعلمون إله يؤيد دافو حيسن إيجا أوجين صوت ودتك وحيابا بدنا يسن كأوين باجرة جانب حن والله لكن إنه يكون ظهيران معها إله وحيسن إيجا أوجينا إيداف ساسي ديشرين وجعل لي خيرا مما يظنون إله وحد إيشا waxay ii malaynayaan oo khayrka ah ilaahu ii samee ahlu khayr iga dhig saas wiiman saas ay sameyn jireen taasna waxay cadeynaysaa in ay ku baraarugsanayeen qartarta ay leedahay amaanta iyo sheegida qatarta ay leedahay sidoo kale Umar bin Khattab baa kamid ahaa dadkii aad iyo aad uga carari jiray statuska markaas wuxuu dhihi jiray nabiga Umar waxaan ka hadlay wuxuu ku duceysan jiray Allahumma ij'al 'amali laka khalisan ولا تجعل لأحد من خلقك سما وحديه جري إلهي وعمل كاغا أن سمينيو إيغاي المدن أدوغو كوربو أو أدوغو درتا عنو سمينيو ولا تجعل لأحد من خلقك أحد أدو مدى ذا كامدانا إلهي هؤية من عمل كاغا أو أصاب إنا نقولت شيدو هأيغا ديغن دور إلهي نساسو ديه جري عمر إن القضاء رضي الله تعالى عنه dad baa marka hadda waxaad arkaysaa cilmigu u baranaya si dadka kale u sheegaan uu dhexdooda caan uga noqdo waana arin qatar ah uu markaasi aadna nooga digay nabigeena sallallahu alayhi wasallam alayhi waxaana u daliila xadiiskii Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu nabigu wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam alayhi man ta'allama al-ilma liyubahi bihi al-ulama aw liyumari bihi as-sufaha aw yasrifa bihi wujuh an-nas ilayhi fa huwa fi an-nar bi sallallahu alayhi wasallam alayhi hadis qatar نبي يقول لي من تعلم العلم ليباهي به العلماء فالأوفيس روح علمه أبرته إنه علماء نقضه إن شيخ لده إن وذات لده إن عالمك وإن لده روح السدع علمه أبرته أو يماري به السفهاء ضدك وحما قرأتها السؤال الدوله صماغا أركن ضد علم الشيغان يقون الشيغان يعني إن علم ليهين أو يقون ليهين aqoontooda waxay kula soo suuq tageen baraha bulshada inay yimaadaan oo dadka wax magaratada xoogaa dambiyada ku dhacdhaca iyo inay la doodaan bay rabaan kan buu maagi oo kan kaluu maagi oo kan buu ka soo hadlay oo kan buu caynay oo kan buu aflagaadeeyay maanta wuxuu la soo taagan yahay un cilmigiisaas inuu dadku ku waabsado war cilmi badan isliid hoos dhig soo saasma lama aha laakiin dadka inaad yani waxayaan aad cilmigaaga yani wuxuu ku waabsato oo ahadiistii iyo aayadihii yar yar ee soo baratay inaad dadka ku waabsato ma aha isla markaana aad kula doodo sidoo kale dad baa cilmiga waxay u bartaan aw yasrifa bihi wujuha an-nas dadka wajiyadooda inuu soo leexiyo wuxuu leeyahay lay daawado si lay daawado waa inaan raadiyo waxyaabo xiiso badan waa inaan sidoo kale ka hadlaa dadka caanka ah soo dadka caanka waa inaan ka sheekeeyaa oon ka hadlaa oon ka la doodaa si aan markaa iyada aan caan u noqdo nabigeena waa ka digay wuxuu yiri ruuxa cilmiga sida u barta inuu dadka wajiyadooda soo leexiyo uu dadka isku soo jiidaayay ruuxaasi fa huwa fi an-nar naartu galaya marka waa xadiis sidoo kale qatar ah oo dadka statuska badan aad iyo aad yani xooyaan looga ilaaliyo way allahna uu ka sii waramayo naar buu u ballan qaaday ruuxa yani waxa weeyaan statuska sameeynay oo caanimada raadinay soma la tahsabanna alladhina يفرحون بما آتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا سوما إلهي تبارك وتعالى وحليه كوا كفر حيا وحا إلهي سي أو علمي أو تشعل إلا أمانه ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا هذا وحا إلهي باكوسي سوما وابد أدو جاهل أهيت وابد روح عطاد عيني سأت كدرنيت سوساسما هذا إلهي باكوسي تبارك وتعالى الحمد لله ده سو دتك إني أمانة بوبرت نبي إلهي تبارك وتعالى هذا هو الرأي فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم يعني الروح سميوسا مؤمنين إن لو دياري نوعي عذاب إن لو دياري مؤمنين سادرد سيدوك وحكمد دباتوين كشرا وحكمد روحنا هلاجيا نار تنا السبباي قفك أو مركز دتك كلام مقعودة عاني مكرادية هم جورنا مركز وكجلو
waxaan sheegayo wax walba waxaan saari doonaa daliil baan saari doonaa insha Allah tabaaraka taala dad ba maanta wuxuu hunguri ka galayba inay dadku magacaabaan sooma hada dadku dad bay isugu jiraan qof de ilaahay caanimo iska siibaas ka jiro sooma xumaan ha ku caanbaxo wanaag ha ku caanbaxo ruux walba ilaahay wax buu si u siiso saasma inaad marka raadiso oo dadka magacooda qaadidooda iyo sheegidooda aad caanimo ku raadisay taa iyadana ilaahay waa diiday nabigeena salawaatu rabbi salaamu alayhi aad buu u diiday nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu sheegay oo uu cadeeyay isla markaana aad u cabsiiyay dadka arimaha sameeynaya waxa jira xadiis laga warinayo mustawrad al-qurashi nabiga salawaatu rabbi salaamu alayhi baa wuxuu leeyahay man akala bimuslimin aklatan fa inna allaha yud'imuhu mithlaha min jahannam ومن كسى برجل مسلم فإن الله عز وجل يكسوه من جهنم ومن قام برجل مسلم مقام رياء وسمعة فإن الله يقوم به مقام رياء وسمعة يوم القيامة وكما قال صلوات ربي السلام عليه معناه حديث كوعوي نبي يقول لي روح قف مسلمة مقعي سوح كعنا سوما وحبوك كعني إلهي تبارك وتعالى يا وحكسي جهنم إلهي وحكسي يا تبارك وتعالى ومن كسى برجل مسلم رفس فإن الله يكسوه يوم القيامة انت wax laga siinaya asagana jahannama wax laga siinaya sidoo kale waxa kamid man qaama ruuxa u istaaga ruux muslima ulana istaaga markuu u istaagayo istaagida waxa laga wadaa ruuxa inuu istaaga ruuxa oo inuu caayo ama aflagaadeeyo ama wax ka sheego ama magac uu ka raadiyo magaciisa uu istaaga asaguna dadka kale istutusaya ilaahay tabaaraka taala wuxuu soo istaajiyaa maqaam maalinta qiyaamaha ayuu soo istaajiyaa maqaamkii istutuska ayuu soo istaajiyaa buri nabiga sallallahu alayhi wasallam marka waa sidaas ina iska jirto way ina iska ilaaliso way inaad ka digtoonaato way inaad ruux muslim cirdigiisa kugu xadgudubto arintaasna waa in markaasi waa inaad markaasi aad looga digtoonaadaan waayahana ducaada iyo anta aad bay ugu qadamaan oo qodobkaasi aad bay ugu dhacaan waana midda ay carabtu ku kaftamaano waxay yiraahdaan khalif tu'raf soma khalif tu'raf khilaf hal ku bartay soma ahad kaani khilaf oo wax ka sheeg oo caay oo soo hal lagu bartay dadka ku bartaane dadka magacaaga ku qaad qaadaane saasay macnaha waxayaan culimada ay yiraahdaan carabtu ay yiraahdaan waxaan rabaa marka maadaama ciwaanka muxaadarada ay ku qornayd casrigii caanimada iyo radintii sheekh Shantaay oo yaa tahay saasay macnaha sheekh Shantaay oo yaa tahay su'aasha marka waan ku qasbanaanay inaan magaciisu sheegno si aan marka dadku hadalkeenu ay u fahmaan cidda ay fariintu ku socotaan ay u fahmaan sida daraadeeda fariintu iyo kelimadu waxay markaasi diraysaa waxa weeye oo ay ku socotaa dad badan oo markaasi ducaada ka midaysan mar walba sheegay waxaana ugu horeeya san sheegay sheekh hadda aan ka hadli doono biidni Ilaahi tabaaraka taala sheekhaasi khayr Allah siiye waxaan horta uga digayaa anigoo fursadan uga faa'iideysanaya saddex arimood haddii uu rabo in dacwadiisu barakowdo saxiixna noqoto uu qaadan doonaa digniintan uu qaadan doonaa waanadan uu qaadan doonaa hadduu yahay daaci saxa ee dacwadiisa inay hirgasho xayra daacigu saxda waxaa lagu yaqaanaa wuxuu aad u jecel yahay dacwadiisu inay hirgasho dacwadiisa inay socoto dacwadiisa inay meel marto dadku inay waanada ka qaataan yuu aad u jeceli sababta keentay marka inaynu ka hadalno oo aan sheegno waxa weeye ama aan u naseexeeno maadaama aan isu shaqo noqonay hawshiisuna sida aan dareemay howl dacwo ay tahay taasna waxa weeye taas ay igu kalifaysa inaan marka qaladaadkiisa soxo maadaama lagu hayo qaladaad fara badan uu marka galay arinku koowaad uu ku qaldamay waxa weeye sheekha oo aan markaasi ka joog waxaan kaaga digayaa inaad ka joogto
sheegidda magacyada dadyowga aad xumaanta uga digayso dadkaad xumaanta uga digayso munkarka aad uga digayso yacni magacyadooda inaad isticmaashood baraha bulshada soo raaciso ood baraha bulshada ku sheegto taa iyadaa iska jooji nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu calayhi asaga ayaan uga dayanaynaa dacwadan lagamana hayo in uu nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi magac si toosa u magacaabay lagama hayo nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ilaa ruux wareeriyey oo gaal ahoo diinta dhibay oo rafaadiyey mooye oo uu markaa lacnadayo ula hadlayo saa ula hadlayo mooyaane ruux uu nabi maxamed waaninayo muunan isticmaali jirin inta badan oo inta badan sida la ogyahay nabigu muxuu isticmaali jiray maa baalu aqwaam maa baalu qowmin yani saasuu isticmaali jiray nabi saasuu isticmaali jiray marka waxaan uga digayaa madda koowaad uga digayo waxa weeye horta magacyadu iska ilaaliyo mar walba inaad magacyada soo qaadato iska ilaali oo ficilku mar walba ka hadal oo ruuxa markaa ficilku uu sameeyey oo waxaad tidhaahdaa dadyow baa jiro ficiladaas samaynaya ficiladaasi ay ku fogan yihiin baan uga digayaa dheh laakiin hadda qof hebel baan soo qabtay oo qof hebel baan faanqaynay oo qof hebel baan ka hadlay oo qof hebel baan guri haddaad dhahdo yacni waxa weeyaan taa iyadaa lagaa yeeli maayo dacwona ma aha diinna ma aha wey waxaan sidoo kale kaaga digayna laba arrimood arrin kale cirdiga iyo sharafka ruuxa ha ku xadgudbin oo ha u samaynin naaneesyo xunxun sida gacmay bidaare calooley jiisow iyo wixii la mida ha isticmaalin diinteenu waxay ka digaysaa arrintaa iyada ah iyo in ruuxa muslimka ah cirdigiisa iyo sharafkiisa lagu xadgudbo diinteenu waa ka digaysaa marka ruuxa dee daaci wey sooma diintu waa yaqaanaa wuu soo aqriyey wuu arkay waxay ahayd marka ugu yaraan ruuxa inuu cirdigiisa iyo sharaftiisa ilaaliyo waxaan arkaynay sooma inuu magacyada dadka qaarkood soo qaato magac iskaba daa waa iska dhib ma lahane laakiin cirdigii iyo sharafkii nabigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu leeyahay sibaabu lmuslimi fusuuqun wa qitaaluhu kufrun buu nabi salawatu rabbi wasalaamu caleyh leeyahay ruuxa muslimka inaad cayso ood aflagaadayso waa faasiqnimo diintaa looga baxaa saa daraaddeeda magaca intaad soo qaadato ood dhaleecayso ood cirdigii iyo sharafkii ku ciyaarto ma ah dad baan arkay intuu soo qaato yaa wuxuu leeyahay saa buu sameeyaa saa buu yeelaa xagguu ka dhacaa waa sidaan waa waxyaaba aan hadda halkaan aan ka sheegin jirin oo ka sheegin karin oo aan laga xishoonayo ayuu dadka qaarkood ku sheegaya bidaarey madaxii jiisow sidaa weeye qaabkaasuu sameeyaa cambuhu gurubsadaa baqbaqa ah saasuu sameeyaa yacni waxa weeyaan waa ceebaha dadka muslimkaoo la uruursanayo oo lasoo ururiyey waay oo la baahinayo hadda ceebuhu soo diinteena teen nooga digaysay ma soo daacimatiid soo diinta maadan akrin soo diintu garamaysid soo ceebuhu ma aha midday diinteenna nooga digtay sooma in la khariyo xataa haddaad ruuxa ceeb ku ogtahay soo lama dhihin qari astur ilahay baa ku asturaya tabaaraka watacaala ilaahay baa ceebtaada asturaye astur soo lama dhihin nabigeenu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu leeyahay man tatabaca cawrata akhiihi tatabaca allahu cawratahu ruuxa walaalkiisa cawradiisa iyo meelaha uu ku liito dabakaco raaraaca ilaahay cawradiisuu raaraacaa waxyaabahaan la yaabo waxaa ka mid a sheekhaasi dadka xataa uu caynayo ama waxuu ka sheegayo ama cirdigiisa cirdigooda uu ku xadgudbayaay ayagu markay waa un ayagaaba difaacaba ayagaa iska difaacaya ayagu un waxbay sameeyaan oo ayaga iyo rabbigood bay ka dhexaysaa sooma in la waaniyay ahaayeen in loo naseexiyay ahayd sooma laakiin mar allaala markuu saa u soo caayay rabaan inay ayagu mar labaad ka jawaabaan ayagu kuma daydaanoo xoogaa waxay sameeyaan hadallo xoogaa yacni nadiif ah oo cirdigiisa saas uguma xadgudbaan marka waxaa nasiib darro ah adigoo daaci sheeganaya inaad dadka aflagaadayso kii aad aflagaadaynaysano hadal suban uu kula hadlo soo qaadaro ma qaadaro iska ilaali diinteenna waa ka digtay in badan baa sheegay xadiis baan sheegay aayad baa ii dhiman ilahi wuxuu yidhi tabaaraka watacaala walaa talmizuu anfusakum walaa tanaabazuu bilalqaab bi'sa lismi lfusuuqu bacda aliimaan waman lam yatub fa ulaa'ika hum aalimuun ilaahay tabaaraka watacaala wuxuu leeyahay walaa talmizuu anfusakum war naftiinu ha ceebaynina nafihiinu ha ceebaynina waxyaabo ceeb ah oo ruuxa laga xishooda ha ku sheegin walaa tanaabazuu bilalqaab naaneesyada xunxunka ahna ha isugu mucina sooma ruuxa waxaa laga yaabaa isagoo bidaar leh inuusan ogolayn in bidaara la yidhahdo dadka qaarkood ayagoo gacan la yaysan ogoleen gacmi in la yidhahdo soo saas maa inaad ku sheegta marka taasuu diinteenu diidaysaa oo soomaalidu intay hadalka wanaajiyeen baa waxay yidhahdeen gacmo dheere sooma ruuxa gacmo ma leh
markaas waxay leeyihin gacmo dheere waa u qarinayaan hadal wanaagsan wey laakiin haddaad dhahda ka hor gacmo laabe yaa haddaad dhahda soo qaabdarro ma waa qaabdarro hadallada iyo jumlooyinka kala dooraan leeyahay sheekh haddaad sheekh tahay oo de wadaadadu waxaa lagu yaqaana iyo ducaadu inay jumlooyinka iyo hadallada soomaaliga ah ay kala xushaan oo midda ugu wanaagsan ay dadka gaarsiiyaan sababka waxa weeye daaci kaloo adigu kaa yar baa kugu dayanaya sooma daaci kaloo kaa cilmi iyo aqoon yar yaa kugu dayanaya yaa luuqadaada qaadanaya yaa lahjadaada qaadanaya haddii dee culimmadii dabcan dad baad wax bartaa saan u malaynaya oo arday kuu ah ardaydaadii hadday waxaa kaa maqlaan ka hor birina way soo baxayaan ayagoo dadka dhaleeceynaya dadka sumcaddooda ku ciyaaraya dadka aflagaadaynaya yay soo baxayaan marka mar walba waxaan waa lagaaga dayanayaa waxaan way kuu yani waxa weyaan waa wax duuban oo cajal ah oo mustaqbalkaaga dambe xataa haddaad toobad keento ku raacayo wey saa daraaddeed inaad iska ilaaliso wey diinteena walaa tanaabazu bilalqaab laqabyada iyo naaneysyada xunxunka in isugu wac waa diiday hadda maanta waan ujeednaa waa laisugu wacaaba bi'sa lismi lfusuuq bacda aliimaan magac faasiqnimada inaad dadka ugu wacdo waa qaadaro marka sheekha waxaan leeyahay inta badan dee wuxuu uu ku dhaqaaqo waxaa ka mid a magacyadaasi inuu markaasi ku dhadhawaaqo isla markaana cirdiga iyo sharafka qofka muxuu ahaa in badan wax ka sheegay intaan arkay wey intaan arkay muuqaaladiisu aan daawaday oo intaan muxaadarada diyaarinayay muuqaaladiisa intaan daawaday intaabaan ka arkay cuquubada kugu dhici karta ama kugu dhacaysa waxaa ka mid a haddii aad iska ilaalin weydo oo sidaasi ama waxa khayr miiradkaas iyo naseexada aad qaadan weydo dhibaatooyinka ku wajihi kara waxaa ka mid a ruuxa aad waaninayso wuuba kaa sii carari doonaa meeshuu waano iyo wacdi kaa qaadan lahaa ama uu kaa dhagaysan lahaa haddaad caydo oo sifadiisa aad durto oo sifadiisa iyo qaababka ilaahay u abuuray aad ku durtaay ruux baa cayilan ruux baa caataa ruux baa bidaar leh ruux baa gacanla ruux kastaa ilaahay inbuu u yeelay intaasna sabab baa ku kaliftay asaga gacantu isma tirin bidaartu asaga iskuguma yeelin sooma cuuriyaan asaga iskama dhigin ilaahay baa ka dhigay tabaaraka watacaala ma ahayn marka inaad tiraahdo jiisow iyo bidaarrow iyo balaayada aad tirinaysaa diin maaha saas way macnaa iska ilaaliya lagu leeyahy haddaad iska ilaalin weyda cayda iyo sifadaasa duraysana cuquubadaasaa kugu dhicin doonto deewaanada iyo wacdiga iyo waxa aad sheegaysa ama baraka la-aan noqonayo qof allaala qofkaad fiiris yani ku daawada buu kaasii cararaya inuu dacwo kaa qaatay diin iska daaya waa tan labaadee aakhiro camalkii aad samaysatay ood ku daashay baa la siinayaa ruuxii aad cayday ruuxii aad aflagaadaysay ruuxii aad xumaysay sooma hadda nebiga dad baa waxaa laga yaaba inuu yidhaahdo hadda ruux waaba yahay waxaan ka sheegaye waaba yahaye nebiga saxaabadiisa waxay weydiiyeen xan maxaa la yidhahdaa markaasuu wuxuu yidhi dikruka aqaaqa bimaa yakrah walaalkaaga wuxuu nacay inaad ku sheegto markaas wuxuu yidhaha rasuul ilaahayow war wuxuu nacay hadduuba ku sugan yahay ka war ruux waaba jiisba waaba bidaaruu leeyahayba ama waaba gacamayba maxaan samaynaa markaasuu yidhi nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi haddaad ku sheegtana hadda waad yani waad dulmisay buur waa dulmisay marka waxa weeyaan lama ogola aslan maxaa u daliila nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi dad buu tilmaamay ina almuflis buur muflis ma taqaanaa muflis ma garanaysaa min ummatii nabigu wuxuu yidhi sal ly slam markuu ka jawaabayay man ya'tii yowma alqiyaamati bisalaatin wa siyaamin wa zakaa wa ya'tii waqad shatama hada waqadafa hada waakala maala hada wasafaka dama hada wadaraba hada fayucطى hada min xasanaatih wa hada min xasanaatihi buu yidhi nabi maxamed salawatu rabbi waslamu alayh macnaheedu waxa wey muflis waxaa la yihahdaa buur waa ruux hoogay muflis waxaa loo yaqaana dee ruux hoogay oo khasaaray camal iyo shaqa uu qabtayna meeshuu faa'iido filayay khasaaray baa muflis la yidhaahdaa waa ka nabigaa sheegaya wuxuu leeyahay waa ruux maalinta qiyaama imaan doona bisalaatin salaad buu la imaan oo soom buu la imaan oo zakow la imaan muu imaanayaa buu yiri nabi maxamed salawatu rabbi waslamu alayh ninkaasi oo salaada iyo soonka iyo zakada iyo camalka wanaagsan iyo dacwada iyo diinta sheeganaya oo dhahaya daaci baan ahaa markaa waqad shatama hada asagoo kan caayay waqadafa hada kan xumaan ku sheegay wa akala maada hada kan maalkiisa cunay wasafaka dama hada kan dhiiga daadiyey kanuu dhiig ka daadiyey oo kanuu xoolihiisa baadil uga qaatay oo kan buu qadfay oo xumaan ku sheegay oo kan buuba caay aflagaado toosa u caayay sooma wadaraba hada kan buuba garaacay oo maalin wax uu ku dhuftay saasuu u maanbuur markaasaa maxaa ku dhacaya marka hadda ninka daaci buu ahaa ilaahayow
وصلاة بدكون شر إلهي وصوم شر إلهي ومحن كسمينا مركن كان مركز إلهي وحده تبارك وتعالى فيعطى وحال سينا هذا كان عايي من حسناته حسنات كيسي كان وحكوش ديغا كداديينا وحال سينا حسنات كيسي هذا أساق محاوي يا الله مرك كي دنبيغ اللهابة دنبيغي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عليه بل أفيس سوق ساربا روح عاده يسو تيك توك اسكداف ودوانين شرتي عايدنا عاد حوغا وبرحي شرت سوبا تيك توك اسكداو ساسو السمياء وإسخاويان وإسكو دقان وحيابها ترين شرتي والصح والصح يقلب تقول ويامنسين روح إني دنبيهين ودد المسلمين إلينا سو ساسما روح حساس أديه جرتي بابري وحالسين دونا قيامها حسنات كاغي دعوة عاد شقيقة شقينيس أو صلاة الدكانيس أو عمل كون أكسر السمينيس يا لسين دونا كي بداري أديه جرتي كي صلاة يعني هو أنا عاد جيس وديه جرتي كي وحيابها قلدان أد كل سمين جرتي يا لسين دونا تا يبقى مركب وحي عبسي يعني وقتها قف كاساس سميني الشيخ وحان ليه إلهي كعبس dadka ha cayn haflagaadeynin waxa ka sheegin una saxay diinta u sheeg culimada ka waaweyn ku day nabiga looga dayda dacwadan waxa uga dayda saalixiintii oo salafkiiba uga dayday oo taabiciintiiba uga dayday oo culimada hadda joogta uga daydeen adigana ma uga daydid hadda dhahdo shantaayo diintii baan nabi maxamed uga dayanaya nabi maxamed dad ma cayn jirin dadna bidaartooda iyo xumaantooda ma sheegi jirin sooma bal waa ka difaaci jiray dadka kala caynay bal wuxuu dhihi jiray in muxuu sibaabul mu'min fusuq qofka mu'minka inaad cayso faasiqnimo xageed ka keentay marka dacwada dhahayso ruuxan sifaadkiisa la sheego oo bidaartiisa la sheego oo waxa ilaahay ku yani nooca uu yaala la sheego dacwada dhahaysa xagee laga keenay marka waa isweydiin سؤال إن هذا أدو كجواب أي تهوي ونكسوين بإذن الله تبارك وتعالى سو نصيب در ما مركا إن هذا ما أنت حمانت كشكتي إن بري مركا حسنات كذي لبودو تامرك حكيني زبادة كيني وحويا إن أرمها سميس أرين كسد حاجة وقد دقي وحوي وأنا شيء إنه أرين كقدام بيا إن أد محوها أدريج إسكيلالي إن أد كاتو طبعا أدريج بكم وغمر كان فيري وعديس تم وعدنا يا آيات بوسوق هذا أو حديث بوسوق هذا والرؤية حقا لكن واحد كم وغض واحد أضايق بكم وغض قلب سنة بكم وقت ودبع سنة ودتك يعني حولا المحوها الوعدينيس أو أريد على كدور الجملين كأوجد شلع سن سما كبير كان الله متشعل إسكايلالي وواحد كوجنا الصحيحين يواي كبير كان إسكايلالي ومربى بسكار كيس أصله ضايع أنا بسيطة بنا هاي عتر كأن مرصدو إد هي ستمله سابنا هاي وحاجة كبيرة تا أيضا كبير بيت المامسة تا مرة ومركنا نكون مشغول لكن عندي إسكايل على أدلجا النبي جاء صلى الله عليه وسلم على سجل لوجد جيو فبما رحمة من الله لنت لهم رحمة إلهي كسي إن حريص سكون حريصي يا دوما دون حريصتا ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك حداد أهان لهيد أحد قلبي أدك يا أو أدك حداد أهان لهيد لانفضوا من حولك هل لها قدتك ويكلي حل هاين وكاتقي لهاين وحوانا كاقاتد وين لهيد هذا ما توحان لنا عقوبة هاي السبع أي تايم هذا قف كسوت كسو قادو ترى هذا الشيخ شنتاي وروح حاسمع وكله وبسك عين هدور ربحتا وحكينا وحوي أدك وي نبي قال وير هداد أد كان لهيد dadku kuma baraaceen ba waanaba kaama qaateen ba waxaad yaani wax weeyaan ilaahay kugu naxariistay dadku dhan ay ku raacsan yihiin wax weey jiljileecada waa marka dadka u jilcanow yiri nabi Allah tabaaraka ta'ala nabigeena ku waaniyay marka waxaan leeyahay dacwo cusub horta ma jirto nabiga kaga dayo dacwada iyo inaad adiga iska bilaabato ha sameeynin nabiga uga dayo dacwada khayrka sidoo wuxuu sheegi jiray yani lama aqbali karo run ahaantii ama daaciga ruuxa daaciga lagama aqbalayo saxna ma aha in uu markaasi asaga iska bilowdo qaab iyo istiraatiijiyad iyo nooc cusub oo dacwo oo uu leeyahay ama fitna jirta ama waxaas jirta xilligaas ma fitna jirtay dhibaato jirtay
kufrigu waa badnaa islaamku waa cusbaa dadku way dhib badnaayeen xilligaas haddana nabigeenu salawaatu rabbi wasalaamu dadku waa u naxariisan jiray muusan aflagaadeyn jirin wuu u turi jiray saasaa lagaaga baahan yahay marka haddii aad tahay ruux markaasi daaciya ugu dambeyn waxaan ku leeyahay horta diinta muxuu ahaa iyo khayrka ayaan kugu ogaa inaad ku dadaasho laasimto dhex ahaato ahlu khayrka mar walbaa ku dhex jirto taa iyadana waa waano kale aan ku jeedinayo biidni illaahi tabaaraka wa tacaala hadal yaroo marka waxaan rabaa kaftana inaan ku yaro tuuro wax yaroo yaro kaftana wey marka inta aan diyaarinayay muxaadaradan marka aan iclaaminay oo aan sheegnay muxaadaradan yaa dad ila soo xarxariiriyo qaar ardaydeeda ay ka mid yihiin qaarna dadka kale ay ka mid yihiin yaa waxay ii dhahayeen mar walba de sheekhu ha ka soo hadlin ninkaas ha ka soo hadlin oo maxaa dhacay hadda wuu ku caynayaa wuu ku aflagaadaynayaa wuu ku dulminayaa hadal aan kuu qalmin buu kugu dhahayaa iska ilaali dad waxay ku leeyihiin iska baaji muxaadarada dad waxay ku leeyihiin mayo xoogaa u dhimri markaad hadlayso xoogaa si yuusan ku soo caynine saasay leeyihiin marka waxaan leeyahay anigu weli ma arkin ruux diinta garanayo oo wax caynayo oo wax aflagaadaynayo ama inta xaqa uu sheego ka jeesanayo sooma hadda isaga sheekh ayaa la yidhi sooma saa daraaddeed sheekhnimadu waxay caddaynaysaa ruuxu inuu diinta wax badan ka yaqaano maadaama wax badan uu ka yaqaano uma malaynayo marka kelimadaydan gadaasheeda inuu intuu isoo caayo baraha bulshada noocaas usoo fariisan doono sababto waxa weeyaan ruux la waaniyey wey ruux la waaniyeyna waanada inuu qaato ayay tahay saa daraaddeeda baan dadkaas waxaan ugu jawaabay oon mar walba aan dhahayay hadduu sheekh shantaay hadduu naseexadeeda qaadan waayo asagu la hadli maayee sheekhiisa ayaan uga dacwoonaynaa soo ma sheekhiisaan uga dacwoonaynaa maxaa yeele sheekha wax soo baryan dib ugu laabanayna waxaan leenahay war sheekhow ardaygaaga na rafaadiyey oo na dhibaye bal naga qaba saasaan leenahay marka waxaan rabaa inaan markaasi idhaahdo ugu dambeyn sheekh haddaad diiddo waanadan dabcan diintu waynu wada leenahay dacwada muxuu ahaana dacwadana ducaadoo dhan bay ka dhexaysaa qof laga ogolaanayo inuu ku ciyaarana magaca culimadana ma jirto diintuna ra'yi ma aha waa waxyi soo degay oo nabigeena ku soo degay oo annagu nala farayo inaan sidiisa u raacno ee ma aha midaan annagu saan rabna ka yeelan karno oon babedeli karno oon dhihi karno dacwadii nabiga sidaana ee dhimrin baa ku jirtay laakiin tayda waa inay caay iyo aflagaado la socotaa lama dhihi karo saa daraaddeed waxaan ku leeyahay toosnow waxaan sidoo kale baaqaan u dirayaa waxa weeye biidni illaahi tabaaraka wa tacaala codkayga gaarsiiya baaqaan u diraya waxa weeye oo aan leeyahay in allaale ninka ragga ah sunnabi maxamed ku sheegay waa ruuxa naftiisa celiya buur waa ruuxa naftiisa isa saxa bal nabigu wuxuu yidhi ruuxa ugu cadaalada badan waa ruuxa yidhahda anaa qaldan alliga raalli noqdo marka waxaan ku farayaa in dadkii aad khaladaadka ka gashay inta aad caysay hadda wixii dacwo iyo diin iyo wixii aad yani ka hadashay ilaahay baa ajarkaaga qori doona laakiin intaad caydayood aflagaadaysayood wax ka sheegtay raaligelin ka bixi raaligelin ka bixiyaan ku leeyahay biidni illaahi tabaaraka wa tacaala waana rajaynayaa inaad waanadaas biidni illahi tabaaraka wa tacaala qaadan doonto maxaa yeelay laysa ashadiidu bisurac walaakina ashadiidu alladii yamliku nafsahu cinda alghadab nabigeena wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ruuxa geesiga oo aftahanka ah ama sheekha dheh ma aha ruux dadka un la dooda oo maantana dood usoo taagan ma aha laakiin waa ruux isceliyo naftiisa celiya oo isqabta oo haddii asaga la waaniyana waanada qaadan kara mar allaale markuu dadka waaninayana mar walba ilaahay ka barya in waanadiisa la qaato biidni illaahi tabaaraka wa tacaala dadaal fara badan muuji jazaakum allahu khayran inta dhagaysanaysay muxaadarada wa axsana allahu ilaykum wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu